Bismillaahirrahmaanirrahiim. Maxaa faa'iidaha laga kasbadaa markay lamaanuhu si fiican u wajahaan isku dhaca ku yimid? Cilmi baaris weyn lagu sameeyey su'aashaas ayaa waxaa ka soo baxday faa'iidooyin badan. Haddii aan soo koobo faa'iidooyinka ugu waaweyn, waxaa ka mid ah lamaanihii waxay akhlaaqdoodii ayaa kor u kacaysa. Macnaha waxay ku baranayaan akhlaaqaadka muhiimka ah sida sabarka, cafinta iyo naxariista. Akhlaaqyadaasoo nabigeena uu sheegay akhlaaqyada ugu waaweyn inay yihiin lagu galo jannada. Sida la ogyahay, ruuxa aadanaha waa sida diamond-ka oo kale. Diamond-ka waa macdan ay nuurkeeda soo baxda keliya markii cadaadis dab ah iyo jarjarid lagu sameeyo. Sidoo kalena ruuxa bini'aadanka markay dhibaatooyin soo food saarto oo uu si fiican u wajaho, ruux bini'aadanka waa soo ifayaa. Waxaa laga hayaa oraah ah halyeygii Gandhi inuu yiri, fikradda ah in halganka bilaa qoriga lagu xoreyn karo waddan waxaan ka bartuu yiri guurkayga ayaan ka bartay. Ma dhihin waxaan ka bartay jaamacadda, iyo wuxuu dhahay waxaan ka bartay guurkayga. Maxaa yeelay iskuulka iyo jaamacadda lagama barto akhlaaqda, waxaa laga bartaa keliya warshadeynta iyo wax soo saarka iyo sida wax loo tacbo. Laakiin dabeecadda qofka markuu nolosha wajaho ayay kor u kacaysaa. Tan labaad oo ay lamaanuhu ay ka baranayaan isku dhaca hadday si fiican u wajahaan waxaa ka mid ah kalgaceylkoodii iyo jaceylka isku qabeen oo kor u kaca. Waxaa dhacaysa markay lamaanuhu heshiiyaan ayaa waxay ka hadlayaan dhibaatooyinka ay la kulmeen markuu isku dhaca jiray, oo labadoodii sariirta labada qofba dhinaca madaxa u jeedin jireen dhinaca kale. Markay heshiiyaan, matalan xaaskii waxay leedahay intii oo aan dhibaatada jirtay hurdo la'aan, fakar ayaan la hurdi waayey. Ninkana wuxuu leeyahay wallaahi shaqada waa tagay maahane qalbigayga ma joogin, anigoo dhanaa maqnaay. Taasna waxay u suuro gelinaysaa inay lamaanuhu bilaabaan inay lamaanahooda dhinaca fiican ka fiiriyaan. Sida laanta ubaxa waxay leedahay qayb qodax ah iyo qayb fiyoora ah ubax ah. Markay dhibaatada ay wajahaan kadib, lamaanuhu waxay bilaabayaan inay ka arkaan ubaxa lamaanahooda oo ay fiirin qodaxda lamaanahooda. Taasna waxay u suuro gelinaysaa inuu ka talaalo guurkoodii cudurrada soo food saara. Khibradda saddexaad ee ay lamaanuhu ka faa'iidaysanayaan waxaa ka mid ah lamaanuhu waxay ku ogaanayaan dabeecadaha reerkooda. Matalan reerka ay gabadha ka dhashatay iyo reerka uu wiilka ka dhashay. Maxaa yeelay Soomaalidu waxay dhahdaa tol waa hal la qalay. Hilibka marka la qala hasha hilibkiisu waa kala fiican yahay. Tolkana sidoo kale dad fiicana ku jiro iyo dad xuna ku jiro. Mararka qaarkood waxaa arkaysaa dadkaasoo dhan markii uu aqalgalka jiray waa cayaarayeen, waa dabaaldegayeen. Laakiin dadka waxaa lagu bartaa markay dhibaato dhacdo, waxaa arkaysaa tolka qaarkii oo furka tuuranayo oo ku leeyahay gabadheena saddexdeeda halkaa soo dhig. Ama waxaa arkaysaa wiilka tolkiisa oo dhahayo war gabdho kalaa ka badan saddexdeeda sii. Marka kuwa kalena waxay leeyihiin waryaa furiina ku degdegin, ismaslaxeeya. Marka lamaanihii waxay ogaanayaan tolkooda kii fiican iyo kii kale. Mustaqbalkana waa ka digtoonaanayaan oo ay kuma degdegayaan dadkaas. Midda afaraad oo ugu dambeysa oo kuwa aan dooranay waxaa ka mid ah khibradda lamaanuhu oo kordhaya, oo ay marka dambe arrinkooda ay xallin karaan. Xitaa ayagaa dad maslaxeynaya markay khibrad u yeeshaan isku dhaca lamaanihii. Waxaa dhici karta inay maslaxeeyaan carruurtoodii, inay maslaxeeyaan asxaabtoodii iyo reerka dadka kale oo isku dhaca ku yimid inay ayaga maslaxeeyaan. Sida Soomaalida ay dhahdo nimaan bad marin badmaax ma noqdo. Tusaale waxaa jiro, aniga waxaan guursaday anoo 18 jir ah, xaaskayga 16 jir ay ahayd.
aqoon umaanan lahayn guurka waxaa la dhihi jira ayaga ha isku barbartaan waxyaabahan hadda youtube-ka oo muxaadarooyinka iyo google-ka iyo waxaas iyo ma jirin bugaagtan badan la qoray marka alxamdulilah barnaamijkan sababta igu kaliftay waxay ahayd inta yarta luflufka aan ka bartay inaan u gudbiyo dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay ninka ugu caqli badan ama gabadha ugu caqli badan waa gabadha dadka dhalinyarada ka barta khaladaadkii dadkii hore ay galeen waa dhalinyarada aan sugin inay khaladkooda ka bartaan oo ay ka bartaan khaladaadkii dadkii hore ay galeen sida annaga oo kale sidaas darteed ayaa qur-aanka waxaa lagu sameeyey qisooyinka bani israa'iil si aan uga digtoonaano aan uga barano maxaa yeelay noloshu waa gaaban tahay haddii aad sugto inaad khaladkaaga ka barato wakhtigaaba kugu dhammaanaya marka waxaan idin leenahay barta aqoon u yeesha guurka iyo macaamilaadkiisa si uu gurigiina u noqdo sida ilaahay uu ballan qaaday wajacala baynakum mawaddatan waraxma guri oo xasilooni iyo deganaan ay ka jirto taasoo waddankana dhaqaalihiisa iyo wax soo saarkiisa kordhinaysa maxaa yeelay guriga markuu degan yahay waddankana waa deganaana insha allahu tacaala waxaan jeclahay inaad ka faa'iidaysateen waa barnaamijkii horumari ummadaada oo taxanaha ahaa oo idin soo gudbiyey baasi xaaji busuri waxaa kaloo isku soo dubraday walaalkeen axmed amiin xasan barnaamijkan waa barnaamij taxano ah haddii aad rabto inuu si toosa kuu soo gaaro fadlan isdiiwaangeli oo subscriber ka noqo fadlan sidoo kale u gudbi saaxiibadaada si ay uga faa'iidaystaan fadlan waxaan idin weydiisanaynaa inaad noo soo ducaysaan oo ilaahay tawfiiqdana waafajiyo barnaamijyadan oo kale waxay u baahan tahay in uu tawfiiqda ilaahay ku waafajiyo khayr ayaa idin dhaafay maca asalaama mahadsanidin